This is Naima waxay ka soo jeedaa Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho tan iyo markii ay ogaatay barashada Ingiriiska inuu leeyahay faa'iidooyin aad u badan waxay go'aansatay inay barato Ingiriiska laakiin waxaysan ogeyn in sida ay wax u maleynaysa aysan wax ahayn caqabadii ugu horeysay ee ay la kulantay waxay ahayd inaysan si sax ah ugu dhawaaqi karin ereyada marba waxay isku dayday inay dhahdo throw laakiin waxay dhahday throw saaxiibadeed ayaa ku qoslay waxayna dhaheen waad soo dhaweysay laakiin maadan sixin waxay isdareensiisay in Ingiriiska ku adag yahay caqabada xigta ay kala kulantay luqadda Ingiriiska waxay ahayd grammarka ay aad ugu wareertay marar badan waxay dareentay quus laakiin mar walba waxay aaminsaneyd inay baran karto Ingiriiska marka kadib Naima waxay bilowday inay practice gareyso luqadda Ingiriiska laakiin tan ugu adag ay kala kulantay luqadda Ingiriiska waxay ahayd mar ay isku dayday inay ka hor hadasho ardayda oo ay isbarto ardayda ayadoo ku hadlaysa Ingiriis ayadoo cabsanaysa ay istaagtay waxayna tiri My name is Naima. I am from Somalia, Muqdisho. Si fiican way ugu hadli kari weysay Ingiriiska. Qof walba ayada ayuu aad u fiirinayay. Waxay dareentay liidanaan. Markaa kadib macalinkeeda ku yiri, "Great job Naima. Hore u soco qalad kasta waa qayb ka mid ah barashada." Isla markaana Naima waxay ogaatay inay caadi tahay in qalad la sameeyo. Waxay badisay in badan ku hadasho luqadda dadkana weydiisato inay ka saxaan qaladaadka ay sameynayso. Muddo kadib Naima waxay ku fiicnaatay luqadda Ingiriiska. ayadoo fahmi karta kuna hadli karto waxay ogaatay inaysan macno yeelanaynin sida wax u adag yihiin laakiin ina wax ku sii adkaysato ayaa furo u ah guusha wax kasta marka hadii aad bilaabayso barashada luqadda Ingiriiska aad isleedahay way kugu adag tahay xusuusnaa sheekada Naima xaquusan talaabo kasta aad hor u qaado waxay ku dhaweynaysaa guusha sii wad barashada Ingiriiska oo dulqaad u yeelo ugu dambeyn waad baranaysaa